hay'adda boqortooyada Sacuudiga oo qaabilsan deeq bixinta markas Salmaan ayaa deeq timir ah ka qaybsay qaar ka mid ah deegaanada hoostiga degmada Gareed. deeqdan timirta ay ugu tala gashay dadkii ay abaaruhu saameeyeen sidii ay uga soo kaban lahaayeen dhibaatooyinkii ka soo gaadhay abaarta isla markaana uga qayb qaadan lahayd gurmadka loogu jiro soo kabashada abaarta. deeqdan timirta ahayd oo ka kooban 1400 oo qays ayaa soo gaadhay deegaamada ka mid ah degmada Gareed. dowladda Sacuudiga ayaa ahayn markii ugu horeysay oo ay deeq mucaawimad soo gaarsiisay deegaanada hoostiga degmada Gareed ama jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo si xoog leh uga qayb qaadatay gurmadkii abaaraha ee loogu jiray samata bixinta dadkii abaaruhu saameeyeen. haddaba deeqdan timirta ahayd oo ay dowladda Sacuudiga soo gaadhisay deegaanada hoostiga degmada Gareed ayaa waxaa ka mid ahaa gudaha degmada Gareed Kalaksharka, Urgulbi, Fadhiga, Shiisha, Tuur, Cabdille. iyadoo deeqdan timirta ay soo gaarsiisay dowladda Sacuudiga deegaanada hoostiga degmada Gareed ay ka warbixiyeen gudoomiyaha hay'adda qarni Afriqiya ee gobolka Sanaag Cabdullaahi Maxamed Axmed oo soo ka warbixiyay deeqdan timirta ay dowladda Sacuudiga soo gaarsiisay deegaanada hoostiga degmada Gareed. mahadda alle kadib runtii baahidu way ballaaran tahay. dadkii abaartu xoolihii intii badnayd way ka dhamaysay. meelahan ay isugu soo noqdeen oo ku soo barakaceen iminka Kalaksharkan ku sugannahay oo degmada Gareed ee duleedkeeda ah. marka waxaanu u baahannahay insha Allah dadka deeqda inoo keenay markis Malik Salmaan iyo munazamada waynu u mahadnaqaynaa. baahida jirta xaddigay la eg tahay iyo mucaawanada runtii isma laha laakiin wax badan bay qabanaysaa. insha Allah taala waxaan rajaynaynaa siyaado aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqaynaa duqa degmada Gareed Mr. Faarax oo runtii si hufan oo gobonimo leh noola shaqeeyay isaga iyo runtii xildhibaanada golaha deegaanka iyo oday. sidoo kale waxaa isagoo halka ka hadlay Elias Maxamed Sheekh oo kamid ah mas'uul sare oo ka tirsan hay'adda iskaashiga Islaamka. sidoo kale isaguna waxaa la hadlay maayilka degmada Gareed Mudane Faarax Aadan Ciise oo isagu u mahad celiyay dowladda Sacuudiga sida mugga iyo miisaan kale ay uga qayb qaadatay gurmadkii abaaraha. sidoo kalena soo dhaweeyay deeqdan ay soo gaarsiisay dadkii ay abaaruhu saameeyeen. waxaynu joognaa degmada Gareed gobolka Sanaag. halkan waxaynu joognaa qaybinta timir loogu talagalay 1400 oo qoyskiiba uu heli doono 2 kartoon oo timir ah. kartoonkiina waxaa ku jirta 8 kiilo oo timir ah. marka timirtan waxaa soo dhiibay markas Malik Salmaan lilghaatha wal a'maal al-insaaniyya. jazakumullahu khayran intii soo bixisay ilaahay khayr ha siiyo usoo gurmatay walaalahooda abaaruhu ay sameeyeen. deeqdan waxaan maanta ku doonsinay gudoomiyaha degmada Gareed shacbiga Sacuudiga iyo boqorkooda oo runtii waxa weeye ka soo jawaabay markay arkeen baahiyaha ay qabaan dadka walaalahooda ay abaartu saameysay. halkan waxaan ku qaybinaynaa sida la soo sheegay ilaa 1400 oo qoys timir gaaraysa oo qoyskiiba 2 kartoon qaadanayaan. meelahan ka qaybin doono insha Allah waa degmada Gareed meelaha hoos yimaada ay ka mid yihiin Kalaksharka, Gareed gudaheeda, Fadhiga, ilaa Tuur, Shiisha, dhowr meelood oo kale. insha Allah baan jecelahay inaanu gaarsiino. waxa weeye runtii waa deeq waqti loo baahan yahay timi laakiin si aan baahidii loo jirtay 100% ka faynin. jazakumullahu khayr baan leenahay. walaalahayga hay'adda iskaashiga Islaamkana waxaan ka codsanaynaa ama aan u rajaynaynaa khayr iyo inay ما markii ugu horeysay deeq noocan oo kale ah dowladda Sacuudiga soo gaarsiisay dadkii ay abaaruhu saameeyeen iyagoo hiil iyo hooba la garab taagan shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland isla markaana ka qayb qaatay dowladda Sacuudiga dhibaato kasta oo soo gaartay dadka jamhuuriyadda Soomaaliland. waa madal sare warbaahinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Gareed.